السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا واد سلامي صاحبكم قريقان iyo barta youtube kan kulana toos channel waxaan soo gudbinayaa muuqaal ku saabsan sida mobilkaaga iyo telefoonkaaga saad lambar ugu xidhi lahayd shaashada ama aad u dhigi lahayd shaashada markaana waa screenka ama meesha dhalada ah ee hadda ku muuqata sidii aad u dhigi lahayd oo aad ugu save garan lahayd magacaaga ama telefoonkaaga si qofku markuu telefoonku haduu kaalmo qofka ugu horeeyo oo arko maadaama telefoonku uu xidhan yahay log uu ku xidhan yahay ama security ku xidhan yahay si qofku markiiba uu lambarkan shaashada ka muuqda uu ku soo ila lambarka ila la jabiyo lama gudihiisa la galo lambarkiisa lama ogaan karo qofku haduu uu kaga tago ama emailku ilaawo muuqaalkan muuqaal gaaban oo muhiim ah weeyaan adiguna ka faa'iideyso oo la soo raac marka hore waxaan naga xasuusinaa inaad subscribe saarto channelka si aad la socoto wixii cusub ee marka aan soo gelino ee muhiimka ah like na noo saar adigoo ku mahadsan daawashada inta daawatay la socod wanaagsan saasad marka hore waxaad tagaysaa setting ayaa tagaysaa setting waa halkan meesha marka tagto setting aad tagto waxaad ka dooranaysaa setting marka tagto halka ayaad ka dooranaysaa log screen meesha ay ku qoran tahay log screen baad riixaysaa log screen markaad riixdo halkan ay ku qoran tahay contact information ay ku qoran tahay ayaad saa u sii riixaysaa hadda marka hore waxba kuma qorayn laakiin meeshan aniga macluumaadkayga aan ku qortay adiga sidaas oo kale ayuu ahaa bal hadda la socod wanaagsan aan ka soo bilaabo haddaba cibaara ka soo bilaabo log screen ku dhufo tag log screen markaad tagto contact information baad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku qoraysaa markaad contacting halka tagto waxaad ku qoraysaa fadlan iga soo wac haddaad heshay waa tusaale weeyaan kadib waxaad qoraysaa lambarkaaga ayaad ku qoraysaa waka sida markaad ugu qorto lambarka safe ayaad leedahay waadna ka baxda iminka aan damiya haddaba mobilkaan tuso si ugu soo qorayso